waxaan wadnaa gacan ku dhiigihii dilay adeerkiis guuleed kalleeye waxaan rabnaa inaan ku wareejino bulaale maxamed cali guuleed iyo cabdi maxamed cali guuleed iyo dhammaan reer cali guuleed ama reer samantar dilka habeenkii xalay u geystay adeerkiis oo ahaa nin dhalinyaro mustaqbal leh taliyaha booliska degmada Jariibanna ahaa waxaa ka horeeyay dilka sanad iyo bar ka hor uu u geystay in adeerkiis laxmi ah magaalada Garacad ee xeebta dekada xilligaas uu tooray rubada uga boobay gacan ku dhiigle Ibrahim Ahmed Kooshi oo xalay bartamaha magaalada degmada Jariiban ee gobolka Mudug ku khaarijiyay adeerkiis oo madi ahaa taliyihii booliska cusbaa ee degmada Jariiban ayaa lagu wareejiyay qoyskii uu ka dhashay taliye guuleed Cabdulqaadir Cali Kadleeye barnaamijkan waxaan idin kula wadaagi doonaa sida uu dhacay dilka taliyuhu gacan ku dhiiglaha oo xilligan markaasi uu ka muuqdo wajigiisa foolxumo murugo iyo walwal fara badan iyo cabsi oo eheladii taliyuhu ay la wareegeen iyo arinta xiisaha leh ee ka dambeysay dilka taliyaha khudbadiisii ugu dambeysay iyo fariintiisii ugu dambeysay taliya guuleed uu diro waxay ahayd sida tan qorigii magaaladaas aan ku arko dawladda iskale anaa iskale saldhig Jariiban baa iskale ogaada waxaanu faraynaa cidii lagu arko qorigeeda dawladda iskale nolol kama daba yimaado nolol kuma yimaado cid aanu dilayno iyo cid aanu leeyahay cid aan soconaa ma jirto ninkii asoo ku dagaalamay qorigiis oo damcay inuu ciidanka shaqeynaya qori sharci darraa ninkii isku dhajiyo oo kula dagaalamo looga harmayo ugana cararmayna tilaabada uu xaq u leeyahay iyo waajibka uu leeyahay baamaraya kun haday nooga dhimanayso qorigaas anaga noo boqran waanu qabanaynaa waanu ku dagaalamayna waanu kula dirirnaa waanu ku qabanaynaa ma garatay hadeer macnaha hadeer hal ismaqlo qorigaaga meel dhigo gurigaaga dhigo meesha meel amni ahayd xaalad kama jirin dagaal kama socdo waxa qoriga magaalada hadda waxay noqotay naf iyo qori bay noqotay yaa ka dhigay dad samaawi ah ama cirka ka yimid maayo waa dadkii joogay waa kuma ninka dilay taliye guuleed Cali Kadleeye ee loo yaqaan Ibrahim Ahmed Kooshi ninaastiisana la yiraahdo Qunjuraaf ku magac dheer dadka deegaanka Mudug ama Jariibanna ay u garan ogyihiin maxay isku maandaafeen maxaa ka dhaxeeyay dhammaan xogahaas oo dhan baan dul istaagi doonaa balse intaan u gudbin waxaan idin ka codsanayaa dhammaantiin inaad Allah u baridaan sarkaalkan qaaliga ah ee qiimaha leh ee dhintay ee ku baxay gacanta ninkaasi gacan ku dhiglaha ah in Rabbi naxariisi janno ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo ummadda Soomaaliyeed oo ka baxayna Rabbi samir iyo iimaan u ka siiyo aad baad mahadsantiin وهبينما أي سيب حيث خميس 16 جولاي 2026 قلبتي أما قلب نمدي أما عسر ليقي قلبتي كمنان شعب هيا كسو قيب قلي آسكي لو سمي تليه عصباء إلا مقعابي 25 ديسمبر 2025 دقمدة جريبا إيو قبل كمدوب قوليد عبد القادر علي oo ku magac dheeraa guuleed Kadleeye kaas oo lagu aasay hoygiisii degmadii Jariiban gobolka Mudug walaalkii guuleed sabriga ma naga sii dhamaatay gacan ka xaqdaran baa dishay daalin baa diray aan garasho lahayn waxaan rajaynayaa meesha uu guuleed maray inuu maro haddii alla marka koowaad waxaan tacsiyanayaa dhammaan ummadda reer Puntland marka labaad waxaan tacsiyanayaa gobolka Mudug marka saddexaad waxaan tacsiyanayaa degmada Jariiban oo guuleed mas'uul ka ahaa waxaan leeyahay ilaahay baa guuleed naga jeclaaday ilaahay ha u naxariisto ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo dhammaan dadka reer Puntland iyo dadka degmada Jariiban guuleed sheegayna maanta wuxuu ahaa intaana qofaas ugu timid Jariiban cid kuma hayn
intii ka shaqeysay ka imaanka dheeri ninkii gaari soconaya haystay waa jooga qofku waxa adeerkaas ka tarjumaysa ilaahay walaalkay guuleed sanadii imaha naga siiyo dhamaanteen gacan ka xaqdaran baa dishay daalin baa dilay aan garasho lahayn waxaan rajaynayaa meesha uu guuleed maray inuu maro haddii alla idmo ma aha mid aan kusoo koobi karna halkaan guuleed qofku ahaa khayr badan baan idin rajaynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa guuleed inuu naxariis jana siiyo waana salaamay haddaba sidee ayuu u dhacay kiiska taliyuhu sidee ayaa loo dilay marka laga soo tago qadarka eebbe muxuu ku dilay ninka dilay maxay isku hayeen taliyuhu sida la ii sheegay oo ila xogagaa la ii sheegeen waxa uu joogaaba degmada Jariban 2 bari oo kaliya sida la sheegay daraad tii ka horeysay ayuu ka soo tagay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halkaas oo ku soo farsamaysanayay gaadiidkii booliska ay degmada Jariban ay siisay maamulka Puntland waxaana la sheegay oo soo baxay xogo sheegaya in ay jireen howlgallo taliyuhu hogaamin lahaa oo lagula dagaalami doono burcad badeedka maadaama taliyuhu isagu mas'uul ka yahay aagaas Garaacad Jariban iyo bariga Mudugba taliyii degmadana uu yahay xogtaas ayay heleen koox burcad badeed ah oo ka mid ahaa ninka dilka geystay oo ay qaraabo dhow ahaayeen ninka taliyaha ah adeerna ugu aadanaa haddaba sida la sheegay ninkan xalay saqbarkii isagoo cabsan ayaa waxaa la sheegay in taliyaha ay isku haleeleen bartamaha magaalada halkaas oo rasaas ooda uga qaaday isagoo la baxsaday gaarigii uu taliyuhu watay waxaana uu saacad banaanka magaalada u baxay haddana dib ugu soo laabtay magaalada isagoo u tagay nin ay qaraabo yihiin oo adeerkiis ah una isku dhiibay haddaba ninkan la yiraahdo Ibrahim Ahmed Kooshin ninaas ahaan la yiraahdo Qunjuraaf wuxuu dil u geystay sidaan idin la wadaagay in adeerkiis laxmi ah ka hor haddii xilligaas sida shariicada islaamku ka qabtay la marsiin lahaana dhibtan ma dhacdeen dhibta dhan waa in eheladii iyo dadkii xilligaas arrintan ku jiray ay fududeysteen ninkan mag iyo arrimahaas laga qaatay taas oo keentay inuu habeen horena dilo nin adeer u ah oo madi ah waa taliyii qaybta booliska degmada Jariban kiiskaasi sidaas ayuu ku dhacay ninkanna wuxuu ka mid ahaa burcad badeed markab ku haysato eriyada degmada Garaacad andhe xeebaha Puntland ee Indian Ocean-ka ayuu ku jiray sida ila deegaanka ay xaqiijinayaan wuxuu ka mid ahaa ganacsatada yaryar ee qaadwalayaasha ayuu ka mid ahaa waxaana uu si dheer balwado iyo waxyaabo uu isticmaali jiray oo maankiisa dooriyay taas oo keentay inuu fududeysto dhiigga bini'aadamka haddaba caawa ninkay ku haray bay hawle haysataa caawa ayay haysataa wanakan isaga oo ay ka muuqato cabsida iyo walwalku ehladii uu ka dhashayna ay ku wareejinayaan isla ehladii uu ka dhashay taliya guuleed kadlay oo labada ehelba wax badan aysan kala fogeyn oo qaraabo isla hoose ay isla siiyeen ninka dhintay ayaa adeer u ahaa gacan ku dhiglaha ayaa adeer loo ahaa waa kana ila arka waxaan wadnaa gacan ku dhiigihii dilay adeerkiis guuleed kadleeye waxaan rabnaa inaan ku wareejino bullaale maxamed cali guuleed iyo cabdi maxamed cali guuleed iyo dhammaan reer cali guuleed ama reer Samantar waxaan rabnaa inaad nagala wareegtaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin la wareeg bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxa aad ilaahayba mahadsan marka xigana tolka lagu soo wareejiyay gacan ku dhiglaha guud ahaan ninkii gacan ku dhiglaha adeerkiis dilay tolo waa idin kala wareegi waana mahadsantihiin annaguna waxaan u dhiibaynaa amnigii loo hayay baa u dhiibanayna dowladda u dhiibanay isaga ayaa isugu wacan bahdilkaas iyo foolxumadaasi ka muuqato in sidii neef saylad la keenay oo la kala iibsanayo in isagoo gacanta la haysto lagu wareejiyo dad kale isaga ayaa sabab u ah
isaga ayaa isugu wacan nin kasta oo waxgal ahna dawacadaasoo kale ayaa dilaysa walow qadar ay tahay haddana aad baan uga xumahay runtii taliya guuleed cabdulqaadir cali wuxuu ahaa sargaal dhisan aqoon ahaa muddo dheerna u taagnaa isagoo dhalinyaro ah difaaca Puntland sawirkan waa qayb inuu ka ahaa dagaalkii Suuji Garmaal saraakiisha muhiimka ahayd ee ciidamada Puntland hogaaminaysay isagoo waliba aad u sii daayar xilligaas waxaana la sheegay inuusan furintaasi ka bixin tan iyo maalintii ugu dambeysay ee maxaabiistii ugu dambeysay ee kooxda shabaab la soo qabtay markale taliyuu wuxuu tababaro u aaday Turkisom isagoo kamid ahaa ciidamadii militariga Soomaaliya ee Gorgor waana kan sawirkiisu waa falaarta gaduudan isagoo kamid ahaa ciidamadii dawladda ee tababarka loogu soo xiray kana soo degay Muqdisho sawirkan kalena waa isagoo xiran dareeska ciidamada badda ee Marineska wuxuuna magaalada Gaalkacyo kula kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre xilli Xasan Cali Khayre uu safar ku marayay magaalada Gaalkacyo ayay ishaleeleen taliyaha muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku jiray ciidamada difaaca Puntland dhawaana waxaa isku shaandhayntii iyo isbedeladii ciidamada Puntland ay u soo magacowday taliyaha degmada Jariban oo uu deegaan ahaan halkan ka soo jeeday Allah u naxariistay marxuumku wuxuu ahaa shakhsiga markaasi isagoo da'yar intaas ka gaaray ciidamada hami iyo rajana mustaqbal laha balse waxa soo gabagabeeyay ninkaas ay isna qaraabada isla siiyeen walow aysan qaraabo ahayn oo nin ku dilay harkuma jiido qaraabo ma ah qaraabana ma ah wacdow aad baan uga xumay runtii tacsidaasna waxa la wadaagay dhammaan bulshada Soomaaliyeed dadka reer Puntland dadka gobolka Mudug dadka degmada Jariban iyo qoyskii iyo qaraabadii beeshii jifidii intaba rabbi samir iyo iimaan haydan ka siiyo waxaan ku soo gunaanudaya runtii arintaasi sida sharcigu qaba waa in la maro ninkaasi dambi hore u galay dhiig buu galay waxa lagu xalleeyay arin mataqaanaayay sida dhaqanka Soomaalidu odayaashu koofiyad baclayaashu mararka qaarkood iyagu fududeeyay in dadka la laayo ama gacan ku dhiglayeen ay badbaadaan in adeerkiis laxmi ah uu tuuray rubada kaga dhuftay sanad buu xirnaa waa la fasaxay isla maantii waxaan rajaynaynaa in taas oo kala dhicin waa in sida shariicada islaamku qabto ninkaasi la marsiiyo haddii kale arrintaasi waxay dhali kartaa in dad kale oo haldoor ah oo bulshada qiimo iyo ku leh in dhibaato soo gaarto marka yaan laga shaqeyn dhibaato fidna ehelka dhexdiisa ah si loo kala badbaado walakum alqisaas fil hayaa intaasaan ku soo gunaanadaya aad baan islaamay meel ka soo joogtaan saaxiibadeena dhammaantiin salaam allah